munaasabadaadu meeqaam sarreysa ayaa maanta ka qabsoontay barxadda weyn ee dugsiga Al-Faaruq Secondary School ee magaaladani Burco. Xafladan ayaa ahayd mid lagu daahfurayay mareeg warbaahineed oo cusub oo uu yeeshay dugsigaasi Al-Faaruq. Sidoo kale waxa xafladaasi lagu soo bandhigay qaar ka mid ah qalabyada warbaahinta sida kamero iyo waliba mimbar casri ah. horumarkan ayaa waxa ka qayb qaatay dhammaan ardayda iskuulkaasi wax ka barata maamulka iyo macallimiinta oo isku duuban. Sidoo kale waxa xusid mudan in fikirka wax qabadkani uu lahaa wiil ka mid ah ardayda fasalkan afaad ee dugsiga sare ee Al-Faaruq. ardaygan oo lagu magacaabo Xamse Cabdiraxmaan Cabdilaahi. marka ugu horeysa waxaan hal munaasabadan qiimaha badan waxaan ka salaamayaa macallimiinta ardayda maamulka dugsigeena sharafta leh Al-Faaruq Schools. sidoo kale waxaan marnaba ilaaweyn macallimiinteedii soo bartay cilmigan ICT-ga. haddaan hoos ugu daadego ujeedada xafladan qiimaha badan ee horumarka dugsigeena sare Al-Faaruq oo runtii garanaysaa wax aad loogu farxo ah dugsigeena sare Al-Faaruq inuu maanta soo bandhigo iskuulada dugsigeena gobolka Togdheer ee magaalada Burco wax horumar aan iskuulada kale hore uga jirin magaranaysaa horumarkaas oo aad u ballaaran oo markii ugu horeysay munaasabad caynkan oo kale ahi iskuulkii oo u dhan horumarka iskuulka hadday tahay galaaskii form 1ka hadday tahay galaasadii form 2ga hadday tahay form 3 iyo form 4kii maamulkii iyo macallimiintii in la soo bandhigo horumarkii iskuulka. galaaska haddaan dul istaago horumarka qaabka looga qayb qaatay galaasyada form 1 iyo form 2 maamulka iyo macallimiintu waxay ka qayb qaateen nidaamkii kamarada iskuulka. galaaska form 4ka haddaan ku yara noqdo galaaska form 4ku runtii waxay soo diyaariyeen magaranaysaa website-ka iskuulkeenu lahaa magaranaysaa datadiisa lagu bandhigi lahaa daafaha dunida hadday noqon lahayd magaranaysaa cilmigii magaranaysaa iskuulkeena magaranaysaa barnaamijyada ka socda kala duwan. sidoo kale galaaska form 3ga oo magaranaysaa runtii iyaguna soo diyaariyay memberkii iskuulka oo kan imika hortiisa taaganahay ah oo galaaska form 3 ay ku qoran tahay 2016 up 2017. runtii waxa aad loogu farxaa iyaguna inay kaga soo qayb qaataan memberkii maamulkii macallimiintiina ay qayb ka yihiin form 1 iyo form 2giina qayb ay ka yihiin. runtii waa wax aad loogu farxo oo markii ugu horeysaan maleynaya munaasabad caynkan oo kale ah oo iskuulkii magaranaysaa uu u dhan yahay horumarkiisii sidoo kale wax loo soo bandhigo. inta markan ka yimaado walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin kama jirto iskuulada gobolka Togdheer oo dhan marka sidaa loo eego iskuul sameynaya website iskuul sameynaya database barnaamijyo caynkan ah ee ka jiraan ma jiro. Faaruq haday nahan inaga ku hogaaminayna barnaamijka iskuulada oo dhan gobolka Togdheer magaalada. inta ay munaasabadani socotay ayaa waxa halkaasi ka hadlay hadalana ka soo jeediyay qaar ka mid ah ardayda dugsigan oo dhammaantood si isku mid ah ugu hambaliyay walaalkood injineer Xamse. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan ardayda kala duwan sida ay isu soo agaasimeen form 1 laga soo bilaabo ilaa form 4. runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo kulli sanad walba wuxuu ku suntan yahay sanadkan waxaan oran karnaa wuxuu ku suntan yahay sanadkii wax qabadka waayo waa sanadkii koowaad ee la arko ilaa form 1 ilaa form 4 iyadoo wax qabadka laga wada qayb qaadanayo. aad baan ugu mahadcelinayaa saaxiibkii Xamse Cabdiraxmaan aad baan saaxiibkiina ugu mahadcelinayaa Xamse Cabdiraxmaan sida uu soo hawlay in dhaweyd bana wixii sidiisa kaga maqnaa sidii wax qabadkaas uu fuliyaa. anaa ku hadlaya afka gudoomiyaha form 3 hablo iyo namaba waxaan leeyahay Xamse Cabdiraxmaan Cabdilaahi wuxuu soo bandhigay iskuulka oo uu waqtigiisa iyo juhdigiisa u geliyay baalka uu soo bandhigay website-ka aad iyo aad u mahadsan yahay. hambalyo aan u jeedinayo Xamse Cabdiraxmaan Cabdilaahi mahadnaqayaa ardaydii soo qalqaabisay website-ka gaar ahaan Xamse Cabdiraxmaan ayaan aad iyo aad ugu sii mahadnaqayaa. dhanka kale qaar ka mid ah macallimiinta dugsigaasi wax ka dhiga ayaa iyaguna si aad ah u amaanay wax qabadkani uu soo kordhiyay ardaygani. waa kan macallin Dayax oo halkaasi ka hadlay. dhalinyaradan ardaydan hablo isugu jireen kuwaas wax weeyaan sida sharafta maamuuska kale uga soo qayb qaatay munaasabadan ama xafladan aad ku qiimaha badan. waxaan runtii aad farxad gelinaya shakhsi ahaantayda horumarka ballaaran ee ka socda marka dugsiga Al-Faaruq iyo sida ay dhalinyaradiisu ay uga duwan tahay marka aragtiyada ka iskuulada ardayda kale joogta ay ku shaqeynayaan. qodobay ka kooban tahay markaas xafladu waxa waa technical waa farsamo iyo engineering waxa ku mahadsan Xamse Cabdiraxmaan baa ku mahadsan iskaxda uu geliyay iyo cilmiga uu geliyay. waxaanu leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cilmiga waxa weeyaan ha waasiciyo awna furo maskaxdiisa iyo aqligiisa taas way naga mudan yahay inaan markaa wada ducayno.
ما هاينا نحن وحويان وفي عين يهون أما هو خطر إن نحن ما هلا كيس وين نحن دعادي ورعين النبي عليه الصلاة والسلام إنه شرعي بارك الله الله إلهي وبركة يعين بيس قيبت الله بعد حفلته كوفنت وحويان وقيبت دقارة وعد كور هيسان قوام كان نرشب بني آدم وحويان قيب وحيكتها مركا دقارة فكر دقارها وحوي تعب كل صباحه يعلم قبض كتير وقوام كان نرشب حقيقي ويان مركا laga bilaabo waxa weeyaan galaaska form 4ka oo fikradan laha markii hore ilaa form 1ka waxa weeyaan sanadkii koobaad waxa weeyaan ugu jira dhamaantood waxa weeyaan waxay ka qayb galeen xafladaas dhaqaalahan bay uga qayb galeen waxa weeyaan wixii ay maskaxda kordhin karayeen iyagana waxa weeyaan aad iyo bay u mahadsan yihiin xafladda labada qaybood bay qaybsanayd kale intay xafladaasi lagu guda jiray waxa arday kamid ah dugsigaasi halkaasi ku soo bandhigeen riwaayad ay aad u qosol badan oo halkudhig looga dhigay dayaxad arkaysaan dadaal baa lagu gaaray riwaayadaasi ayay aad ula dhaceen ardaydii daawashada u ahaa gabagabadii munaasabaddan ayaa maamulaha dugsiga Al-Faaruq Mudane Xirsi Xaaji Daahir waxa uu xariga ka jaray dhammaan qalabyadii kala duwanaa ee goobtaasi lagu soo bandhigay iyadoo baasha kalena shahaado sharafyo lagu doonsiiyay ardaydii wax qabadkani soo bandhigay iyo qaar kamid ah ardaydii kala soo shaqeeyay dhankiisa mid kamid ah macallimiinta dugsigaasi Al-Faaruq oo lagu magacaabo Macallin Cabsaaq Maano ayaa agab ciyaareed oo dhameystiran gudoonsiyay koox kubadda cagta oo dugsigaasi leeyahay isku soo wada duuba horumarkan ballaaran ee maanta xariga laga jaray ayaa noqonaya kii ugu horeeyay uguna weyna ee iskuulkaasi arday ka barata ay soo bandhigaan Cabdikariin Cawil Cabdillaahi Siike website-ka caalamiga Al-Faaruq News Burco